السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين سلام صاحب بالكسر هذا سومر كومنت كولج iyo casharadani taxanaha inoo ahaa casharkeenan wuxuu ku saabsanaan doonaa uu ka duwan yahay casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Englishka. Casharkan wuxuu ku saabsanaan doonaa waxa la yiraahdo conflict resolution. Af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa xalinta khilaafaadka. Marka sidaan rajeynayo in qof walba iskaga baahan yahay inuu uu barto xalinta khilaafaadka waxay noqon karaan wax external adiga ka baxsan, internal way ahaan karaan adiga shakhsi ahaanta ayaa conflict wax la isku sameyn doona. Waana u imaan doonaa types of conflict wax la yiraahdo. Marka intaan casharkan ku jirno dilaa karana waxaan dul mari doonaa definition-ka qeexitaanka wax la yiraahdo conflict iyo conflict resolution, level and types of conflict, levelka uu yahay iyo noocyada uu yahay conflictiga, khilaafaadka noocyadu yahay, levelku yahay, heerarku yahay, tusaalooyinka ay wadaagaan khilaafyada iskuulada dhexdooda marka la joogo, and how to respectively manage them, iyo sida inuu mid kasta loola falgalo oo loo maareeyo. haddaan ku hormarno conflict definition, conflict maxaa waaye disagreement, waxa waaye waxa la isku khilaafay, qofba ra'yigiisa ayaa la qumanaaday. Marka disagreement waaye conflict often taasoo badanaa violent macnaha dhibaato dhaliso between two or more opposing individuals. dadka wixii disagreementiga ahaa isku khilaafay ayaa markay ay arrinta meel xun ka gaarto ama khilaafaadka la xalin waayo ayaa waxa isu bedela waxa la yiraahdo violent, dhibaato ayuu isu bedelaya oo ama laba kooxood ha ahaado ama laba shakhsi ha ahaato ama laba group ha ahaato. Marka conflict sidaas waaye. Conflict can also be defined as incompatibility, as in two things that cannot be accomplished. Waxaa sidoo kale conflict lagu macnayaa conflict can also be defined waxaa lagu qeexi karaa sidoo kale waxa la yiraahdo incompatibility, isqabqabsi la'aanta, as in two things that cannot be accomplished, oo macnaha isqabqabsi markii oo laba shay la rabo in laga meel laba shay, two things cannot be accomplished macnaha laba shay hal mar lagama miro dhalin karo at the same time oo hal waqti macnaha hal wax markaa rabtid inaad macnaha meel aad hegsanaysid ama inaad arrin samaysid. tusaale ahaan suuq in aad rabtaa inaad wax akhrisana waa rabtaa, marka labadaas shay isku hal mar ma samayn kartid. For instance having two lectures tusaale ahaan having two lectures inaad lahaato laba cashir, schedule to happen laba cashir oo isku wax waqti inay hal mar dhacaan at the same time, taas waa conflict ayay noqonaysaa. Marka waa isqabqabsi. Okay, conflict is an inevitable part of life. Inevitable maxaa waaye wax macnaha lama huraan oo nolosha macnaha lagama maarmaan ah. Meaning macnaheedu waxaa waaye in one way or other we all must experience conflict at the same point. qof walba khilaaf uu soo maray in one way or another, ama si dadban ha ahaato ama macnaha si toos ah ama ha yaraado ama ha weynaado ama isaga naftirkiisa wax isku khilaafa nafsi ahaantaada timetable aad ku degsanaa inaad macnaha sidaad soo sheegnay inaad suuqa aadid ama cabiir fiirsatid ama banooni fiirsatid iyo inaad wax akhrisatid oo isaga qofka shakhsi ahaantiisa khilaaf naftirkiisa oo wax la yiraahdo interpersonal conflict soo mara ama external conflict soo mara wax banaankaaga ima. marka qof nolosha macnaha qof nool oo macnaha mas'uul ah conflict si uu ku soo maraa ilaa ma inaad tahay macnaha qof macnaha oo arfaa qalama macnaha waxba loo macnaha carruurta camal carruurta iyagu wixii xun wixii fiican macnaha go'aan ma gaari karaan mana kala yaqaan wixii xun. The way we are raised up by our respective communities, sidii macnaha the way we are raised up sidii macnaha bulshada ay u korto by our respective communities, we are therefore have acquired different but specific way of dealing with the situation in particular way. macnaha qabiil walba ama community ama bulsho walba waxay qabtaa nooc u gaar ah oo ku xalliso khilaafaadkeeda. waana Soomaalida waa arrin uga sida ay dhahaan odayaasha macnaha qaar geedaha ku xallisanayaan
maaragtay qaar qabiil waxaa jiraan xataa diye markay wax dhibaato soo kala gaarto dil ah diyay kala qaataan qaarna waxaa u qoran inay waxba kala qaadan sida ayaga macnaha their own specific way of dealing with their situation sida ayaga u gaaraya xaaladda oo la dhaqmaan si ay u xaliyaan khilaafaadkaas. Ideas and opinions. Therefore, conflict emerges when we are faced with a challenge. Conflict wuxuu soo baxaa markii aan wajahayno dhibaatooyin in totally different scenario that we are not used to. oo ka duwan xaaladii marka hore kusoo jirta tusaalaan hadda example yar haddaan tusaale in soo qaado sidii Soomaaliya hadda baryahan waxaa ku cusub wax la yiraahdo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne oo isqabsada waayadii hore waxaas ma jiri jirin madaxweyne baa waddanka haysan jiray ama ra-iisul wasaare aad haysan jirin marka khilaafaad ma dhici jirin marka waa wax scenario cusub waayo waa challenge oo hadda macnaha dadka ay face gareynayaan. The way of handling sidii macnaha loola dhaqmi lahaa similar cases traditionally may not be applied sidii oo dhibaatooyinka hadda jiro oo ah modern problem macnaha waa dhibaatooyin cusub waayo maadaama nolol cusub la galay sidii hore oo loo xalin jiray oo modelka ama traditional way ah oo loo xalin jiray may not apply looma xalin tusaalaan Soomaalida markii hore ay khilaafto odayaal baa loo yeeri jiray geedka la fariisan jiray wixii waa la go'aamin jiray laakiin hadda sidoo hore ma aha dadkii si kale arrinta loo galaa حتى qoysaska burburka khilaaf soo dhex gala sida hore sida waayada hore loo xalin jiray hadda looma xaliyo oo qof walba isaga go'aankiisa iskaga degdega bariga horena qofka gabadha iyo wiilka wada markay iskhilaafaan karta marka la qaado midkii laga gar lahaa ayaa qalad kala saari jiray sidaas ayayna arrintu ku dhiman jirtay isagana dusha loo saari jiray wixii khilaaf ah laakiin hadda waxaa waaye qof walba minisa qoorta ugu jiro gabadh dhinac ay u boodaysaa ninkan dhinac u boodaya markaas meel xal laga gaaro lama helayo. Okay, process of solving a conflict. Processka loo xalliyo khilaafaadka resolution marka laga hadlayo xalinta khilaafaadka. What's conflict resolution waa idan u iman doonaa. Levels and types of conflict. Levelka ama baaxadda ama heerka uu yahay conflict khilaafka iyo nooc uu yahay. There are two level of conflict waxaa jirta laba level ama laba heer oo khilaafaad ah. Each level there are types of conflict mid kasta wuxuu qabaa nooc ka mid ah noocyadiisa hoos tago. At the individual level waxaa jira waxa la yiraahdo there's intrapersonal iyo interpersonal conflict. Intra markii r tal raaciyo TRA tan waxa waaye TER intra waa ma doona wax la yiraahdo iyo waxa kale conflict noocan labaad waxa waaye levelka labaad group level kan isna wuxuu leeyahay wax la yiraahdo intra group iyo intergroup conflict marka haddan macnaha kala ogaanayna waxay yihiin intrapersonal conflict maxaa waaye reverse conflict within an individual waa khilaafka within an individual qofka naftarkiisa. This experience take place in a person's mind qofka maskaxdiisa ayaa isla hadlaysa tan ma go'aamo macnaha fara badan ayaa usoo baxaya marka midku qaadanaa ayuu ku wareerayaa. It is psychological waana arrin oo maskaxiyan ah oo nafsiyan ah involving issue or arrin la xiriirta xagga psychological though principles and emotions for example choosing a career tusaalahaan markaad rabto inaad jaamacad ku beertid course a child is deciding markaad rabto inaad macnaha course baa rabtaa inaad qaadato business baa qaadataa science course baa qaadataa macnaha xoolo interpersonal waxa lagu dhacay deciding whether to call it a mag or a cap psychosomatic disorder like handing going numb or before work marka interpersonal waxaa la yiraahdaa qofka oo isaga arrin gudihiisa ku saabsan macnaha dhibaatooyinka soo gaartay wuxuu ku yar wareeraya la yiraahdaa interpersonal conflict. This type of conflict noocan khilaafaadka isna kamid ah can be quite difficult aad ayuu adag yahay to handle in la xaliso if in case a person cannot resolve his own inner struggles hadduna qofka dhibaatooyinka maskaxdiisa soo wajahaya hadduu xalin waayo way dhib badan tahay. Hence waana badanaa markii tusaalahaan qofka markuu ka baxayo normal lifekiisa tusaalahaan qofka bilowga ayuu bilaabayaa qaar waxay noqonayaan qaab jidka istaagan horaan bay noqonayaan arkaysa qof leeyahay markiisa waxa uu fiicnaa laakiin gadaal dambe ayuu maxaa yeelay conflictiga maskaxdiisa soo weerartay ayuu xalin waayo tusaalahaan qofka marka shaqo la'aan ku dhaco shaqo la'aan baahsan ku dhacdo qofka uu isla hadlaya maskaxda ayuu macnaha tuujinayaa
marka dambana waxaa laga yaabaa go-aan qaldan inuu qaato. Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inuu tahriibo oo bad sidaa uu dhinto, ama inuu intuu u dhaho maskaxdani bal intay ka fikiri lahayd bal iyada dhanba ka dil fikirka, oo laga yaabo inuu daroogo iyo sigaar wax intuu qaato inuu qofkii macnaha maskaxdiisa bedelo uu ka dhigo qof waxyaalo mala awaal nolol mala awaal inuu galo perception life macnaha. marmarka qaar waxay abuurtaa wax la yidhahdo depression, qofka inuu isla hadlo isla waashabo. dad buufs u waasha xataa hadda aragtid waa waxa la yidhahdo interpersonal conflict ayaa ku dhacay, markay xallin waayaan depression ayaa ku dhaca cudurka la yidhahdo. Dealing with the inner conflict, empower oneself, make positive change in life in individual counseling. waxaan u baahan tahay qofka in macnaha lala hadlo oo la wacyigeliyo nolosha maanta bas maaha. waxaan ilaahay baa qoray ku samir, ilaahayna bari, wax walba iska hagaagayaan inaa qofka xoogo niyadda loo dhisaya wanaagsan. inta personal conflict iyada maxaa waaye? A conflict between two individuals waa conflict u dhexaysa laba qof, inay naagtiisi laba qof oo saaxiibe, laba gabdhood, laba nin waxaas. These normally occur because of individual difference. tan badanaa waxay dhacdaa sababta ah waxaa la yidhahda individual difference, labada qof oo kala duwan. Every person is unique, qof walba waa khaas ayuu yahay on his own way, including identical to his. xataa labada qof ama taanaha oo isku eg, mid walba ra'yi gaar ayuu leeyahay iyo nolol iyo dabeecad gaar ah. marka waxaa yidhahda unique ayuu qof walba qaba. marka maadaama qof walba uu gaar u duwan yahay, khilaafkan saas ayuu ku imaanayaa. Ironically, those differences are the ones responsible for facilitating personal growth and relationship with others. haddana marka dhinaca kale loo fiiriyo, ayadoo kala duwanaanshahaas loo kala duwan yahay, ayaa kala duwanaanshahaas ayaa wuxuu sameeyaa waxa la yidhahdo wuxuu abuura waxa la yidhahdo personal growth, qofka inuu kobco iyo inuu qofku inuu yeesho dealing with qofka inuu macnaha uu yeesho waxa la yidhahdo personal growth and relationship with others, dadkan uu la yeesho xiriir uu la yeesho dadka kale. maadaama iyadoo la kala duwan yahay, haddana dhanka kale haddana qofka asoo dadka ka duwanayo haddana dadka soo dhexgeli karaa oo xiriir la yeelan karaa. marka ironically waxaa laga wadaa macnaha arrinta la yaabka ama opposite-ka ah, dadku wayna kala duwan yihiin haddana waa kan waa lasla wada dhaqmaya. waa arrin mucjisa macnaha. Dealing with the interpersonal conflict, markii lala xalinayo interpersonal conflict, each party should adjust his own qualities. qof walba waa inuu macnaha dayad saaraa his own qualities, waxa isaga awoodaha gaarku ah, so as to include the other one. A mediator dhexdhexaadiyaha can really help when it comes to such modification. arrintaana kalena qofka markii laba qof ay isku dhacaan khilaaf dhexdhigo, khilaaf dhexdoo ka dhac waxaa fiican loo yeerto waxa la yidhahdo mediator, qof dhexdhexaadiyo oo arrinta dhexdhexaadiyo ka okay. Intra-group conflict maxaa la yidhahdaa? A conflict within a group waa khilaaf ka dhex dhashay group dhexdiisa. dad baa xukun isla hayay, koox baa banooni meel ka dhisan, maamulayaal iskuul, macallimiintii maamulay wixii groupki wax dhexdiisa ayaa khilaaf ka dhex dhashay. among group members dhexdiisa ayaa iskhilaaf. for instance, when tusaale ahaan haddaan kusoo qaato waddankan Kenya waxa la yidhahdo xisbi ayaa laga yaabaa ODM ayaa ka jiro. ODM members fly during their own internal election. qaar ayaa markii ay election isreeb doorasho ay qabteen, marka isreeb doorashada ayay xoogo isku khilaafeen. marka qaar ayaa ka duulay meeshii oo doorashada ka socota iska xanaaqay. marka groupka xisbiga dhexdiisa ayaa isdagaalay. It started when two individuals of the same group disagree. waxayna dhacdaa markii ama khilaafkan u imaadaa markii koox dhisnayd oo hal ujeedo lahayd ay arrintii isku khilaafanayaan intra-group. The interpersonal conflict then, because they are in a group, they tend to acquire following, and before you know it, it is cause all over. waxaa laga yaabaa in la cause waxa la yidhahdo oo dhibaato. Dealing with the intra-group conflict, group leaders markii la xalinayo intra-group conflictna khilaaf group dhexdiisa soo dhex gala waxaa la yidhahdo dealing with the intra-group conflict. group leaders ninka group leaders dealing with intergroup conflict, group leaders is the only hope. intergroup markii khilaafaadkooda la xalinayo, ninka hoggaanka waa kooxdaas ayaa ninka lasoo fiirinayo is the only hope. Therefore it's important that the group leader does not choose side. waxaana muhiim ah qofka kooxdaas leaderga u ah inuuna koox u eexanin. hadday ka arkaan inuu xagga koox kale u eexanayo, groupkaas khilaafka kor ayay usii qaadayaan, meel xun ayay arrinta gaaraysaa.
and peacefully, because if he fails hadduu macnaha arrinta xalin waayo, the group will lose members and eventually collapse. Groupkaas maxaa laga yaabaa hadduu ninkaas xalin waayo inuu groupkaas burburo hadduu arrintaas xalin waayo soo dhex gashay khilaafka groupka soo dhex galay. Okay, intra-group conflict maxaa waaye this conflict between among different groups. Inter-group maxaa la dhahaa khilaafaad soo dhex gala laba kooxood oo kala madba duwan, ama laba kooxood oo duwan ahaadaan mid walba objectivekeeda ama ujeedooyinkooda gaarka ah. Tii hore maxay ahayd oo ah inter-group, hal koox ayaa keligeed khilaaf soo dhex galay. Inter-groupna waxaa waaye inter-group conflict maxaa waaye laba kooxood oo kala dhisan ayaa soo kala dhex galay khilaaf. Different groups within an organization oo ka mid ah organization dhexdiisa, tusaale ahaan ciidamada jeeshka ama militariga iyo booliska dowladda ay ka wada tirsan yihiin, laakiin laba kooxood waaye laba taliska keliya marka khilaaf soo dhex galay. That's inter-group conflict. For instance, after a new constitution was inaugurated, the Senate and the MCS were established, keeping in mind that they were the MPs, so there was a fight among all those office pertaining duties as to who should do what. This was big challenge. Marka haddaan dhankaan siyaasadda iyo ama qaab dhismeedka siyaasadda dhanka in la xiyo constitutionka marka la sameeyo u dambeeya 2010kii waxaa la sameeyay MC oo ah members of county assembly. nimankan oo senatorkan ayagana waa la sameeyay oo ah countiga ayay kasoo jeedaan, countiga ayay matalaan, MCA-gana county ayuu matalaa, MB-gana ama members of parliament county ayuu matalaa. Marka sidii nin walba countigaas uu uga shaqeyn lahaa xoogo koox dhibaatooyin soo dhex gashay. Marka maadaama ayaga dhammaantood ay dowlad ka wada tirsan yihiin, laakiin haddana koox kasta waa gooni, oo senatarada waa gooni, MCA-ga waa gooni, MB-gana waa gooni. Marka waa inter-group conflict ayaa imaatay. Commonly those groups fight because they are different. Badanaan waxay isku dagaalaan sababtoo way kala duwan yihiin. And also it is a competition, maxaan dhax soo tartan, fighting for fame and popularity. Mid kasta wuxuu u dagaalamayaa inuu caan noqdo ama uu macnaha arrinta isaga ninka meesha ka muuqdo isaga noqdo. Dealing with the inter-group conflict, markii la falgalayo oo la xalinayo, when such conflict draws back the organization productivity, then the conflict management should come up with the resolution first. Waa inana conflict resolution khilaafaadka xalinta khilaafaadka resolution waxa la yiraahdo conflict resolution waa in si dhaqso macnaha loo dhex galo. haddii la dhex gali waayana waxay hagaajinaysaa shaqadii meesha laga hayay. As a prevention is always better than cure. waxaana fiican in laga hortago oo sababta la yiraahdo ka hortag wuxuu ka fiican yahay ka hortag, ama ka hortag wuxuu ka fiican yahay daaweynta. Such intergroup conflict, there should be a clear understanding of the institution rules, regulation and bureaucracy. waxaana fiican qof walba inuu fahmo macnaha institutionkiisa iyo sharcigiisa iyo xakameyntiisa inuu fahmo ayaa fiican si looga fogaado khilaaf. Conflict are natural part of human interaction. khilaafaadku waa wax iska dabiici oo ka mid ah bini'aadanka isdhexgalkiisa. People in conflict, whether at the individual or group level, hadday ahaato individual ama group level, perceive that their goals or interests are contradicted by the goals of interest of the other party. hadday qof ahaato ama koox ahaataba waa iska dabiici in wixii lagu tartamayo ama xagga awood ahaato ama xagga resource ahaato ama shaqo ahaato ama dhul ahaato ama baad iyo biyo waxay ahaataba qof walba inuu interest waxa isaga uu isla jeclaado waa wax iska dabiici ah. The formal termination of such conflict begins with the elimination of the perceived incompatibility between the opposing parties through negotiation by their representative. That is a conflict resolution process, but this is the only part of the longer-term conciliation process which require the formation of peaceful relations based on mutual trust, acceptance, cooperation, and consideration for mutual needs.
markii laga xalinayo khilaafaadka the opposing parties through negotiation wadaxaajoodka by the representative koox walbaba waxay soo dirsanaysaa shakhsiyaadkaas ayaa la yidhahdaa representative. That is conflict resolution process. Marka kooxba waxaa laga soo bixinayaa koox kale koox meel aan iskugu imaanayaa isku imaadkaas ayaa la yidhahdaa negotiation wadaxaajoodkaas ayaa waxaa la yidhahdaa conflict resolution processka oo xalinta khilaafaadka. tanna waxaa waaye markii arrintaas dhacaysa waxaa la yidhahdo long term reconciliation arrinta inay mar dambe ay dib u dhicino long term resolution ayaa la yidhahdaa. waxaa la yidhahdaa short term loo jirano marka short term waxaa la yidhahdaa markii xabad joojinta la sameeyo labadeena ilaa ama dambe laga gaarayo islama hadli kartiin ama hala kala tago ilaa laisku imaanayo waa short time. laakiin long term marka waxaa markii kooxo lasu bixiyo oo la fadhiisto oo lawada hadlo si loo helo khilaafaad xalin khilaafaad joogto ah. okay taasoo u baahan in la sameeyo waxyaabo peaceful relation based on mutual trust. mutual trust waxaa waaye labada qof waxay u arkaan inay macnaha ay rumaynayaan mutual trust labada dhinac ka imaanaysa. acceptance waxaa iyaga dhan aqbaleen. cooperation waa shaqeyn and consideration of mutual needs labada dhinac ka imaanaysa u arkaan baahi labada dhinac macnaha labada hadalkaas aynu arkin koox waxa kooxda kale ku danaysanayso laakiin u arkaan wax oo labada dhinacba dan. example of common conflict in schools maxaa kamid roommate disagreeing tan muhiim saa umsii ah insha allah halkaas ayaan ku joojinaynaa hadii la karaa noqdo macnaha khilaafaad ka dhacdhaca iskuulka dhexdiisa ayaa waayo muhiimaddu waxaa waaye conflictiga iyo si loo xaliyo inaan macnaha barato. halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa insha allah. cashirka dambe waxaan kusoo qaadan doonaa soo faahfaahsan cashirka 5 conflict management style oo kamid avoiding, accommodating, cooperative, problem solving, compromising and competing. They are all appropriate depending on the situation. kuwa iyaga dhana waa muhiim marka loo fiiriyo mid kasta iyo darajada ku jiro ayaan soo qaadan doonaa cashirkan kan inoo xigo isoo mid kastaan gaar uga hadlayna gaar uga qeexin doono 5 conflict management style. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.